hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Sodma ayaa gargaar bini'aadamnimo ah waxay gaarsiisay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Gargaarkan ayaa loogu talagalay dadka abaaraha ay saameysay deegaanada iyo baadiyaha fogfog ee gobolka, kuwaas oo la daalaa-dhacayay xaalado bini'aadamnimo ah. Deeqdan oo hay'adda maanta ka daabushay Muqdisho ayaa waxaa horkacayay agaasimaha waaxda caafimaadka hay'adda Sodma, kaasi oo ku wareejiyay maamulka degmada Afmadow. Agaasimaha waaxda caafimaadka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay gargaarkan ayaa sheegay in hay'addu ay mar walba ay ka go'an tahay u gurmashada dadka dhibaataysan. Waxaan ku faraxsanahay maantay oo ay taariikhdu ku beegan tahay 12ka bisha 6aad 2023 inaan halkan soo gaarsiino deeq gargaara oo isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan iyo dawooyinka loogu talagalay maxaa la yiraahdaa xaaladaha degdega ah. Runtii degmada Afmadow oo ah degmo aad taariikhi u ah isla markaasna ay saameyn ku yeesheen colaadaha ka socda wadanka, dad badan oo Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa ay ku nool yihiin kuwaas oo la nool xaalado bini'aadanimo oo aad iyo aad maaragtay u liita ayaa maaragtay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka waxay xil buuxa iska saartay inay soo gaarsiiso daawo iyo raashin. Runtii mudan gudoomiye daawadan iyo raashinkan waxaan ognahay inaysan dabooli karin baahida deegaankan, laakiin waa wax oo maaragtay hordhaca. hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka uu hogaaminayo mudane Maxamuud Macalin Cabdulle gudoomiyaha hay'adda waxay markasta diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan oo u gurmadaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Runtii inta aan joognana waxaan ogaan doonaa baahida deegaanka ka jirta iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha looga baahan yahay. Ma noqon doonto tii ugu horeysay, ma noqon doonto tii u dambeysay, waxay noqon doontaa maxaa la yiraahdaa kuwii u horeeyay ayay ka mid noqon doontaa, mana idin iloobi doono. Waxaan ka rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed dhammaantood inay istaakuleeyaan. Gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin ayaa uga mahad celiyay agaasimaha hay'adda Sodma, isagoo sheegay in gargaarkan uu ku soo aaday xilli loogu talagalay. Maanta waxaan halkan kula gudoonay agaasimaha caafimaadka hay'adda masiibooyinka gargaarka masiibooyinka qaranka Soomaaliya dawooyin iyo raashin runtii aan filayo inay dadku anfici doonto haddii Ilaahay raaho. Waxaan aad ugu mahadsan dawladda dhammaan ra'iisul wasaaraha hay'adda masiibooyinka qaranka iyo cid kastoo ka soo qayb qaadatay runtii in ay dawadan iyo raashinkan soo gaaraan magaalada Afmadow maanta. Alxamdulillah. Runtii waa aad loogu baahan yahay maadaama dadku hadda waqtigan xaadirka ah roobab badan ayaa da'ay, abaartii kadib daadad baa dhacay, kanaaco badan baa jirta, xanuun badan baa jira. Alxamdulillah shuman baan soo marnay daacuunkii iyo abaartii Ilaahay waa na soo dhaafiyey. waqtigan xaadirka haddeer waxa weeyaan waa xilli waxaa lagu jiraa xagaa u dhow oo xilligii kanaacada ay soo kacaysay waqtiga roobka kadib ay dadku ugu baahan yihiin runtii dawooyinka. Magaaladan oo meelo badan wadoon ka ahayd muddo runtii waan ku faraxsanahay maanta in hay'adda masiibooyinka qaranka ay soo hormuud ka noqotay diyaaradda ugu horeysay ayadana ay mataqaana soo dirtay iyo mas'uuliyiinta dawladda. aad baan ugu mahadnaqaynaa. Hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Sodma ayaa wada dadaalo la xiriira u gurmashada shacabka Soomaaliyeed ee xaaladaha adag ay ku haysato gobolada wadanka Soomaaliya, kuwaasi oo la daalaa-dhacayay dhibaatooyin isbiirsaday sida colaado iyo abaaro.